بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علم. waxaan kusoo guda jirnay oo aan soo bilaabnay casharadeenii ahaa hypertension disorder during the pregnancy. waxaan soo qaadanay 1 iyo 2. haddana waxaan u gudbaynaa 3. 1 iyo 2 waxaan kasoo hadalnay ama aan xooga soo saarnay preeclampsia iyo classificationkii. kadib waxaan soo fahnay classificationkii of hypertension disorderskii. kadib waxaan soo qornay preeclampsia ayadaa sii qaybnay classificationkeedii, complicationskeedii, investigationskii iyo clinical presentationkii and treatmentkii. so haddana waxaa maanta u hadli doonaa waxa la dhaho eclampsia aan ka hadli doonaa. eclampsia waxaan ka hadli doonaa iyo chronic hypertension ama pre-existing hypertension ayaan ka hadli doonaa duleela. markii laga hadlayo eclampsia koow waxaan leenahay waxay leedahay waxa la dhahayo definitionkeeda. sooma definitionka inuu yahay tonic colonic conversion, inuu yahay tonic colonic conversion ama season. yani maxaa waaye, yani waa contraction asma iyo relaxation oo socda. waxaa leenahay tonic yani tonic colonic conversion uu yahay. sidoo kale waxaa muhiim ah ayadan definitionkeeda inuu la socdo featureskii ama calaamadihii of preeclampsia, yani inay hypertension qabtay, inuu proteinuria, calaamadihii oo severe preeclampsiadii, sida mataqaanaa inay jirto proteinuria, edema and so on. waxaan leenahay eclampsiada inay tahay tonic colonic conversion ee la socoto association with featureskii of preeclampsiadii inay la socdaan waxyaabihii of preeclampsiada lagu garanayay sida aan ka socdanay shalay aan ugu socdo. sidoo kale badanaa bukaanada, yani badanaa waxaa leenahay bukaanada markii loo one third, yani markii loo qeybiyo markii 3 meelood meel loo dhigo waxaa la arkaa bukaanada mostly oo first eclampsia ama conversion. soma ereyga eclampsia maxaa waa conversion, pre-eclampsia maxaa waaye before conversion. marka waxaan leenahay ereyga ah mataqaana first timeka ugu horeeya ay gelayso bukaanka oo gelayo eclampsia boqolkii 3 meelood meel waxaa la arkay inay lahaayeen calaamadihii mataqaana ama lagu arkay hypertension, proteinuria, yani week ka hor. yani mostly bukaanada yani waxaa leenahay oo ugu arkay eclampsiada marka ugu horeysay, yani markii la sameeyey research waxaa la ogaaday isbuuc ugu horreey inuu isbuuc kasoo hormarayo hypertensionkii iyo proteinuria. yani minus lagu arkay bukaanka calaamadihii preeclampsiadii kadibna oo conversion lagu arkay bukaanada badanaa, yani bukaanada badankood oo conversion ku dhacay. sidoo kale bukaanada waxaa leenahay ayadana sidoo kale mostly of eclampsiada mostly waxay leeyihiin only mataqaana symptomski of preeclampsia. ayadana sidoo kale the most of patientada taaleeda waxaa lagu arkaya calaamadihii severe of preeclampsiadii oo ah epigastric pain and headache. soma calaamadihii severe preeclampsiada lagu arkaa bladder effusion. soma calaamadihii oo lagu arka iyo sign wuxuu ahaa high blood pressure and proteinuria. sidoo kale yani bukaanada kuula imaanaya lagu arkay eclampsiada mostly yani waxay leeyihiin calaamadihii lagu garanaya severe preeclampsiadii oo ah yani madax xanuun, epigastric pain, bladder effusion. soma calaamadihii lagu sameeyay iyo inuu aha blood pressure uu kacsanaa week ka hor ama maalmo ka hor bukaanka galaya eclampsiada. bukaan badanaa si badanaa ma gala eclampsia, hore kama gala conversion waxaas hore oo aan la arkin. waxaa laga yaabaa in la diagnose gareeyo, waa isbitaalka tagaa laga yaabaa in la garo waa diagnosekiisa waa dhici kartaa oo la soo celiyo ama xanuunkaan paracetamol qaar xabadiska aan qofka maalmo kadib xanuun madax xanuun, epigastric pain, badga xanuun, madax xanuuna hadda conversion waxaa ku galo. laakiin badanaa marka bukaanka baaritaan loo sameeyo, screen loo sameeyo, bukaanka conversion galaya ama eclampsia galaya week ka hor proteinuria jirto, blood pressure waa kacsan yahay, calaamadihii epigastric pain, headache, bladder effusion. waxaa laga yaabaa unfortunately badan qaar qofka bukaanka isbitaal tago la soo celiyo xabad iska aad, madax xanuunkaan iyo araggaan xoogaa oo shucaaca kaaga filan waa iska caadi, iska bax la doonaa very mistake iska bukaanka dhakhtar geli kara waay. qofka waxaaba taga inuu conversion galo aan la ogeyn
ama bukaan in la diagnose gareeyo isagoo severe preeclampsia calaamadihii la epigastric pain shalay aan dhihin watan calendar treatmentigin admission loo sameeyo control the blood pressure-kii sooma waxaa bukaanka inta xaafadda la iskaga diro xaafadda ku gala convulsion hataa waa markii bukaanka mostly eclampsiada ah ama convulsion galay tonic colonic convulsion galay mostly waxau leeyahay 1 week ama maalmo kahor mostly wuxuu leeyahay blood pressure inuu kacsan yahay proteinuria inay jirto calaamadii preeclampsiada lagula imaanay severe preeclampsia this is waxaan leenahay waa fikrad guud oo introduction guud ah inaan fahanto sidoo kale ma jira types ma leedahay eclampsiada hadii la weydiiyo ama classification ma leedahay ma kala qayb classification ma leedahay ama types ma leedahay saddex qayb waay saddex qayb oo kala qaybinaynaa maxay jirta qayb antepartum oo laga wado during the pregnancy inuu ku dhici karo eclampsia ayadoo pregnancy ku imaan karta antenatal ah percentage-ka meeqa waay percentage-ka waxaa nina waa boqolkiiba 48 waa antepartum during the pregnancy waxay kula imaan kartaa interpartum ayadoo dhalmadii hore ku jirta oo iska fiican waxay geli kartaa ama high blood pressure la ogaanay tahay preeclampsia ahayd oo daawadii iyo hypertension la siinayo ay waxay geli kartaa interpartum waa meeqo waa boqolkiiba 18 ayadoo labor joogto qofka labor ku jirto dhalmadii ku jirto inay gasho waxa loo yaqaano intrapartum kan u dambe maxay tahay kan u dambe waxaa leenahay waa postpartum waxaa leenahay waa meeqo postpartum wuxuu ka yahay boqolkiiba 36 postpartum maxaa ka wadaa yani waa marka dhashay kadib inay dhimato this is the most serious postpartum eclampsia the most serious waa khatar waay yani waa increase the rate of mortality rate yani waxaa leeyahay marka saddex type waay antepartum inta hooyada uurka leedahay intrapartum mataqaana inta hooyada mataqaana dhalmada ku jirto labor roomka iyo postpartum eclampsia antepartum eclampsia intrapartum eclampsia postpartum eclampsia marka saddexdaas qaybood loo qaybinayo classificationkaas inuu leeyahay mostly yani wuxuu common ku yahay eclampsiadii wuxuu common ku yahay mostly primary gravidada ama primary paras lady markii la barbar dhigo multiparas waxaa leenahay wuxuu common ku yahay primary gravida sidoo kale wuxuu common ku yahay leenahay teenagerska yani waxaa leenahay common teenagerska bukaanka wuxuu yahay teenager more than markuu old yahay yani waxaa leenahay risk wuxuu ku badan yahay teenagerska dadka teenagerska ama youngiga are more common eclampsia markii lala barbar dhigo dadka waaweyn yani primary gravida inuu common ku yahay and then teenagerska inuu common ku yahay ayaa markii laga bardhigo dadka oldiga this waxaa leenahay waa mostly more ku yahay eclampsia may be associated with ischemia some of ischemia or hemorrhage yani ischemia or hemorrhage stroke yani may be associated hemorrhage or ischemic or ischemic stroke may be associated yani waxaa leenahay eclampsia waxaa socon kara hemorrhage or ischemic stroke taqaani iyo qof bukaanka ayaa la socon kara soo inuu maskaxdii oo dhiig ku furto ama dhiig oo ka helo ischemia hemorrhage or ischemic yani ischemia or hemorrhagic or ischemic stroke inuu la socdo sidoo kale waxaa la socda ayadani cerebral inay jirto edema and vasospasm sidoo kale edema of cerebralka inay jirto iyo vasospasm ayaa jirto يعني most of the etiology of eclampsia what is the etiology of eclampsia waxaa leenahay waa unknown yani wax exactly like cause-ka ma yaqaano laakiin waxaa lala socodsiiyaa inay jirto cerebral edema cerebral vasospasm inay jirto cerebral vasospasm spasm oo sameynayo cerebral maxaa yeelay dhiig badan wuxuu aadaa jirkiisa oo dhan markii cerebralka waxay sameynayaan suusa dhiig badan maskaxda ugu fum inay sameeyaan vasospasm inay mataqaana ay qabtaan markay waxay keeni kartaa markaas inay keeni karto hemorrhage ama waxay keeni kartaa ischemia waxaa leenahay waa iyadana waa eclampsiada mataqaana yani etiology ahaanteeda inaysan jirin wax clear ah laakiin in loo badinayo edemadaas iyo ischemiadaas cerebralka inay keeni edemada cerebral edema and vasospasm inay keenayso mataqaana eclampsia
sidoo kale waxaa la socda eclampsiyada marka qaar ama not commonly waxaa loo yaqaano cortical blindness cortical blindness inuu qofku arko cortical blindness inuu bukaankii araggii oo waayo laakiin uu yahay reversible. What we mean reversible yani wuu usoo laaban karaa araggii wuu usoo laaban karaa waxaana waa reversible araggii wuu usoo laabana marka bukaanka waxaa laga baxaa. This marka waxaa leenahay waa general information of eclampsia. In fact eclampsia in a mostly yani one markii loo qeybiyo mataqaana 3 meelood meel yani one mataqaana loo qeybiyo 3 meelood meel markii loo qeybiyo inay tahay mataqaana lagu arkay bukaanka 1 week ka hor calaamadihii preeclampsiadii sign of symptoms preeclampsiadii so in lagu arkay high blood pressure, severe gastric pain, severe headache, calaamadihii of sign and symptoms of severe preeclampsia lagu arkayo 1 week ka hor uusan gelin eclampsiada. sidoo waxaan sheegnay inuu leeyahay types, waxaan kaloo sheegnay definitionkeedii, waxaan sheegnay common iyo private critical ageska inuu badan la socdo first spasm and edema inuu tahay mostly yani wax loo badanaa inay sababto laakiin aysan jirin exactly cause exactly with the etiology saxda ma jiro. marka waxaa leenahay this is waxaa leenahay waa eclampsia waa leenahay this is waxaa leenahay waa eclampsia. What is the treatment? waxaa leenahay what is the treatment? waxaa leenahay treatment of eclampsia maxay tahay? What is the treatment? What is the treatment of eclampsia? Treatment of eclampsia waxaan u qaybinaynaa mataqaana 3 qaybood ayaan u qaybinaynaa. intaan treatmentiga aan u gudbin yani eclampsiada waxaa leenahay prevention lagu sameyn karaa ma laga hortegi karaa ma la joojin karaa? Yes yani waa la yareyn karaa boqolkiiba waa la joojin karaa waa la yareyn karaa. How to prevention? Any patient of severe preeclampsia and every patient severe preeclampsia blood pressure more than 160 or 100 and more than or equal severe preeclampsia. Any patient has epigastric pain, headache, blood effusion, and any patient liver enzyme high, blood low, coagulation, mataqaana DIC, any patient aan ku arko blood pressurekiisa ama severity any calaamad tusina severity preeclampsia inay jirto waxaan siinaynaa wax loo yaqaan magnesium sulfate. Any patient aan ku arko severe preeclampsia waxaan leenahay waxaan bilaabeynaa wax loo yaqaano preeclampsia crisis oo calaamadihii markaan ka shaki kuhagan oo xaaladiisi galay waxaan u bilaabeynaa wax loo yaqaan magnesium sulfate. Why magnesium sulfate? Magnesium sulfate for mataqaana to prevent inuusan dhicin convulsion inuusan dhicin ama eclampsia inaysan dhicin ayay joojinaysaa. marka waxaan leenahay to prevent inuusan dhicin convulsion inuusan dhicin ayay joojinaysaa. Any patient aan ku arko high blood pressure, severe preeclampsia, calaamadihii severe preeclampsia, calaamadahaan oo history examinationkii iyo laab ahaan laabkii maxaa waa laboratory inaan arko liver enzymekii, renal function testigii wixii dhan inay deterioration ay sameynayaan. marka waxaad rabtaa ku arko waxaa leenahay waxaan siinaa any sign of ha noqoto history ama examination ama investigation hadda arko waxay tusinaya inay jirto severe preeclampsia waxaan leenahay waxaan siinaynaa magnesium sulfate si to prevention of the convulsion. Treatmentiga waxaan u qaybinaynaa 3 qaybood. marka waxaan leenahay general. What I mean general bukaanka waxaa ku imaaday convulsion ku jirto yani any bukaan ku jira general convulsion waxaa leenahay care waxaa u sameynaa of respiratory system so respiratory system ka care u sameynaa ABCD aad taqaano so headka waxaa leenahay tilted soma inaan hoos madaxa loo dhigo weliba left lateral inaan u jiifino bukaanka. Why? To help drainage of bronchial secretionski waxay secretion soo baxaa inay fududo inay baxaan. marka waxaan u jiifinaa left lateral waxa way madaxa hoos u raaracinayna soma tilted si aan mataqaana u fududeyn secretionski inay baxaan. sidoo kale waxaa leenahay jirda waxaan sameynaa keep our respiratory tract clear. Our respiratory tract inuu clear ahaado ilaalinayna our respiratory tract inuu clear ahaado inuu mataqaana carabkii wixii aysan meeshan xirinaysa obstruction dhicin qaandayra jirto oo lagu qabto of eclampsiada carabka ku qabanaysa si carabka laba shaqo qabanaa laba inuusan carabka dib u laabanin oosan meeshan inuusan ku sameyn obstructionki oosan iga sameyn airway iyo inaysan isqaniyinin inaysan mataqaana carabka aysan iska goosanin ayay joojinaysaa. marka waa this is general one.
بس على هي بتقارن شو كلا جنرال كم حفلة مهمة هنا هواينا في بلاد بريشر أنا هنا كلام زي كل جزء حاجة بلاد بريشر نورمال يا بيس وما بي إني هذا differential diagnosis كلا سواء ما بني تاني patient أو كوري مع هذا convulsion بيقول pregnancy كلام زي سما حاليا إني تهاي epilepsy وحاليا بقى إني تهاي cerebral hemorrhage وحاليا بقى إنه يجرب تفهم وحاليا بقى إنه trauma كسر عادي وحاليا بقى إنه ليك ولا عفوا في So not means any patient of conversion in mother during the pregnancy and eclampsia maybe other differential diagnosis. marka waxaa leena number 4 waxaa leenahay blood pressure cabbirta very important one not means any patient in conversion ama so must exclude blood pressure cabbir pulse rate cabbir so general ma xasana waa respiratory rate waxaa dhamayaan xisaabina iyo waxaa xisaabina sidoo kale how many times of mataqaana fits ama conversion meeqa mar qofka اوغل conversion waa xisaabiyana ayada blood rate blood pressure ka wax badan waa xisaabiyana markiisa iyo alas qasama this waxaan leeyahay waa jama ina is abcd airway ga to ab some airway and breathing in our vision in a left lateral people can cover tilted to the left lateral bukan ka ilaaliso airway iyo respiratory tract intact noqdo in soo waxba obstruction ama wax aysan xirin. This is general. Medical waxaa leenahay medical measurement waxaa leenahay waxaa siinaysaa antihypertensive iyo anticonvulsive. Antihypertensive waxaa siinaysaa waa sida severe preeclampsia iyo eclampsia rabid ay ka sameyn yihiin daraaga u dooraysa waa inuu mid rapidly action ah. waxaan soo sharaxnay shan inay jiraan money drugs badan soo ma first line ay jiraan second line ay jiro laakiin markay tahay severe preeclampsia waxaan rabaa inaan hore inta severe aan hoos u dhig blood pressure iyo termination ku sameeyaa raba way ishabahaan blood severe preeclampsia iyo eclampsia meesha iska shabahaan treatment-kiga so waxaan siinaa drug oo rabid ah yani high hypertensive kan sida waxaan noqdaa mid rabid ah why rabid to control si oo rabid ah yani maxaan siinaa hydrolyzine injection oo kale hydrolyzine infusion sorry hydrolyzine aan siinaa maxaa yeelay waa rabid action laakiin ma mugin kan eclampsia ah ama severe preeclampsia ama mithaal dooba inaan siino waxba ma qabanayso wax rabid la u baahna markaas laakiin markay tahay mild preeclampsia markay tahay arki doona chronic hypertension waa sii karta ani drug dose oo caadi ah laakiin tan severe preeclampsia iyo eclampsia laabud waxaa waa inaad siiso waxaa qasab ah antihypertensive iyo dosega aan shar ku siiyey kan mid rabid actionkii badanaya hydrolyzine haddii la waayo option wuxuu waa FTP so laakiin rabid waa hydrolyzine antihypertensive kan siinaysa waa to control the blood pressure. Okay, waxaan kaloo siinaynaa anticonversion maxaa leenahay waxaan siinaynaa magnesium sulfate so magnesium sulfate waa anticonversion drug alla so anticonversion drug magnesium sulfate why magnesium sulfate inuu markii severe preeclampsia la joogo waxaan siinaynaa magnesium sulfate why for prevention inuu ka hortagto inuusan dhicin cancer meeshaan laakiin eclampsia markii lagu jiro magnesium sulfate aan siina why to stop the conversion and to inhibition and to prevent other conversion ka loo sameeyo inuu mid kale inuu ka xidhina hadan uu joojina qaabkii u siinaysa waxaan siinaa 4 gram maxaa waaye waa loading dose maxaa u siinaysaa IV waxa u dhex daraysaa inta u dhexeyso gaalan badan ay inta u dhexeyso 50 ilaa 100 milli 50 ilaa 100 milli oo normal size ama 50 ama 100 milli oo normal size waxa u socodsiinaysaa slowly wana socdaa 10 minutes 5 to 10 minutes 5 to 10 minutes يعني waxaan ku socodsiinaynaa 5 to 10 minutes slowly waxaan u dhex daraynaa 50 ilaa 100 milli ayaan u dhex daraynaa of normal size si slowly oo sinaysa waxaan loading dose ay waxaan siinaa maintenance what is maintenance waxaan siinaa 1 gram per hour 1 gram per hour means waxaan siinaa waxaan 24 hour waxaan siinaa 24 gram waxaan siinaa for 24 hour this is maintenance haddii bukaanka asagoo maintenance-iga socdo yani waxaan u dhex daraynaa normal size keenayna waa u dhex daraynaa yani waxaan 24 hour ku socdaa 24 gram means waxaa waaye walkii saac waa 1 gram 1 gram per hour haddii bukaankii oo galo conversion maxaa sameynaa ayadoo ku socda magnesium conversion kala waxaa siinaa half of loading dose yani waxaa siinaysaa 2 gram meesha ka ahayd loading dose muxuu ka 4 gram 2 gram waa siinayna of half waxaa la loading dose kadibna waxaa siweysaa
maintenance waxaa kasii wadaysaa meesha conversion xilligood haddii 24 hours wax wadhinaayo hadda waa bilaabay 24 hours kana bilaabaysa cusub is marka waxaa leenahay magnesium sulfate. Magnesium sulfate sidoo kale badanaa wuxuu keeni karaa wax loo yaqaano ama oo keena ama overdose. Overdose waxaan ku garanaynaa so waxaan any patient aan siinayo magnesium sulfate waxaa la soconaa respiratory rate-ka, urine output-kii waxa loo yaqaano refluxing. maxaa yeele wuxuu keeni karaa bukaanka overdose wuxuu keeni karaa respiratory depression. So waa inaan xisaabay respiratory rate. haddii aan ku arko respiratory rate hoos u dhaco oo dhaco respiratory depression oo dhaco waa able to stop the magnesium sulfate waxaana siin wax loo yaqaan antidote. Antidote-kiis maxaa waaye? Antidote maxaa laga wadaa? Ereyga antidote yani waxa waaye waa kii joojinaya cagsiga iyo soo yani waxaa leenahay waxaan siinaynaa antidote soo antidote-kiis waxaa leenahay marka waxaa waaye waa calcium calcium gluconate waxaa leenahay calcium gluconate waxaa leenahay calcium gluconate waa antidote-ka of mataqaana of magnesium sulfate soo calcium gluconate aan siinayna wala socotaa. haddii uu qaabka u siinaysa waxaa waaye waxaan ka siinaa infusion waxaa leenahay waa 10 milli IV aan siinayna slow wala socotaa. marka waxaa leenahay this marka waxaa leenahay maxaan kala socdaa marka haddii weydiiyo wadada sabab u garanaysa toxicity of magnesium sulfate waxaa leenahay waxaa la socdaa respiratory rate-ka maxaa yeele respiratory depression uu keeni karaa wuxuu keeni karaa oliguria soo renal failure wuxuu keeni karaa oliguria waa la socotaa urine output-ka wuxuu kale keeni karaa cardiac arrest iyo in la waayo loss of mataqaana in la waayo loss mataqaana of reflex ama tendon reflexiga in la waayo soo markii aan hamara ku dhufanayna for reflex ma jiraan reflexiga of tendonka soo inaan tendon reflexiga ayaa la weynaa. waxaan leenahay waa anti hypertension iyo anti mataqaana waxaan siinaynaa anti hypertensive drug waxaan u doonaa mid rabid ah anti conversion waxaan siinaynaa magnesium sulfate. Obstetric measurement same as severe preeclampsia maxaa u sameynayna termination. Severe preeclampsia maxaa sameynayna termination laakiin before termination maxaa leenahay severe preeclampsia maxaa leenahay severe preeclampsia maxaa dhacda waxaan sameynayna control the blood pressure soo ma blood pressure control waxaa dhaman severe termination laakiin marka ay tahay mild preeclampsia caadi ma waxaa dhehayna waxaan sugaynaa intuu ka noqonayo term term ahna termination term ahna observation oo sameeya la soco xaaladaha of tusinayo severity-ga aan kala soconay history examination investigation sama observation oo sameynayo fetal and maternal. marka meeshaan ma no conservative management eclampsia and severe preeclampsia no mataqaana ma jiro wax la dhahayo conservative management termination. arbacaan obstetric waxaan sameynaa wax loo yaqaano termination laakiin before termination waxaa leenahay you must issue to control the blood pressure and then to prevent and to stop the conversion. يعني waxaan leenahay waxaan sameynaa control the blood pressure. How to control? I will give an antihypertensive vaccine or rapid and then I will to stop the conversion waxaan sameynaa magnesium sulfate. After that I will terminate. Termination muxuu noqonaa waxaan rahnay inuu noqdo vaginal or cesarean section. Vaginal ma goormo vaginal waa sida if haddii uu yahay normal presentation and position aysan jirin there is no other indication of cesarean section. haddii aysan jirin wax indication ay tusinaya cesarean section loo sameeyo positionkii uu saxsan yahay vertex presentation oo yahay normal and waxaan leenahay waxaan siinaa and cervixkan oo yahay favorable cervix oo favorable cervix meaning waxaa waaye cervix uu diyaar u yahay induction u sameeyo and termination. if haddii uu yahay malposition malpresentation or other indication mataqaana oo kale waa CBD contracted briefs oo hooyada ama inda iskaar hore leedahay qaadin hore ahaato bar ay tahay sama waxaas waxaan leenahay waxaan sameynaynaa cesarean section. cesarean section waxaa sameynaysa inuu jiro indication of cesarean section sama ama inay mataqaana ay jirto mataqaana fetalkii oo distress yahay inay mataqaana ama hooyadii ay mataqaana xaaladiisa sii xumaanayso oo u baahanaysa emergency inuu soo baxo laakiin otherwise axsan waxaa fiican eclampsia in loo dhaliyo vaginal delivery in la siiyo mataqaana induction and termination. waxaan leenahay obstetric يعني هو as severe preeclampsia
severe preeclampsia and eclampsia are same management of orthostatic termination after to control the blood pressure, after to prevent of the convulsion. You must terminate. أيه postpartum care same as severe preeclampsia. اسمه دوت postpartum care مع إنه متولد ده شكل admission to ICU and continue the monitoring. waxay u baahan tahay good monitoring for blood pressure, fluid imbalance. يعني أنا حسابي output and input. يعني fluid الجراي fluid تبعها أنا حسابي. هنا لسه قدر biochemistry اسمها والليفر enzyme كي renal function test كي blood lead كي and so on. يعني I wanted to check blood pressure, blood rate, fluid respiratory rate, fluid output and input. سمع fluid balance. يعني waxaan ka cabsan waa inaysan gelin over mataqaan over volume, inaysan amar uusan ku dhicin volume ama fluid inaysan ku badan, aysan u keenin pulmonary edema. So waa inay yaraatana lama rabo ee hooyada mataqaana jirkeeda fluid ka dhamaado. I must to balance inputka iyo outputka inaad xisaabi, blood pressure inaad xisaabi, magnesium dadka inay ku socoto same as severe preeclampsia. Hadii la weydiiyo what is the postpartum care? Postpartum care of severe preeclampsia and eclampsia waa same. Admission to ICU, continuous the magnesium sulfate. waxay u baahan tahay good monitoring of blood pressure, pulse rate, respiratory rate, urine output, and check of investigations of renal function testing and blood lead. If blood lead ka oo low yahay, I will to request coagulation of and renal and liver function. This is waxaa la postpartum. And then blood pressure waxaa la most uu laabana 6 day kadib oo dhici kara. hadduu dhici waayo blood pressure waxaan sii siinaynaa antihypertensive drug. Antihypertensive maxaa la siinaa? Any drug waa sii karta of hypertension markii laga reebo methyl dopa lama siiyo postpartum. waa safe during the pregnancy laakiin postpartum no, wuxuu keenaa depression and psychosis. marka ma la siinayo any drug si laakiin methyl dopa stop. way sii wadaysaa and check waa lagu socdaa isbuuc, 2 isbuuc, 3 isbuuc, bil waa la socdaa xaaladii blood pressure normal ku laabto gurigeeda iska aadaysa. blood pressure maxaa laga checkinaa, waxayna qaadanaysaa antihypertensive. haddii normal ku laabto khalas ku laawaysan يعني خلاص يعني waxay noqonaysaa chronic hypertension. What is the pre-existing or chronic عشان aad yar waa soo gabagabeynaa insha Allah. Markii ugu dambeeyay waa pre-existing ama chronic hypertension loo yaqaan. maxaa laga wadaa pre-existing? insha Allah waxaan soo sheegnay koob markaan sharaxnay ashku hore waxaan saddex mid kamid ah sama inay ahayd noun case, inay isku ogeed inay tahay hypertension inay qabtay before the pregnancy. يعني inay noun case of hypertension before the pregnancy. Okay doctor, I'm smoking like waxaan diagnose gareynay before 20 weeks. No, before 20 weeks of pregnancy. labaatan isbuuc ka hor of pregnancy waxaan ku aragnay high blood pressure. ayadoo aan this is one fifty waxaan waa chronic hypertension. waxaa yar waa silent yani soo martay blood pressure oo soo sharaxay. waxaa laga yaabaa marka inay ku timaado blood pressure ka cabirta waa high blood pressure waayo ayadoo labaatan isbuuc aan gaarin. lama pregnancy induced hypertension kii preeclampsia waxaa lagu yaqaanaa after 20 weeks. so waxaan ku arkaa before 20 weeks aan khalas waxaan this is waxaan waa chronic hypertension. ama way isku geed boos ugeed chronic hypertension ahaba doctor daawo qaata aniga ay kula waxaan waa before pregnancy isku geed ama ismu laakiin 18 laatan week god waxaan ku arkaa high blood pressure. okay doctor ama waxay ii timid laatan week kadib ama 30 week ii timid high blood pressure ku kacay ma garan karo this blood pressure is preeclampsia wala waa chronic ma garan karo. maxaa sameynaa? waxaan leenahay postpartum hadda aan sheegay postpartum care ku waday. postpartum care lagu waday 3 ilaa 6 months oo sii socda oo khalaas waxaa rabay inuu laabto intaas pregnancy uu laabana 6 isbuuc gudahood ama 3 isbuuc gudahood ku laabana ilaa waxaa la fursanaa 6 bil hadduu soo laabo waayo dis waxaa leenahay hooyo waxaa tahay chronic hypertension maca sanaad kadib ugu dhammaan saddexaas xaalad waa postpartum, before pregnancy and before 20 weeks. marka dadku arko bukaanka ila imaado chronic hypertension waxaan ka fiirinaynaa screening waxaan u sameynaa of secondary causes. maxaa yeelay chronic badana mataqaan essentialka badana chronic waxaa sababsan essential waxaa waa primary waxa loo yaqaano essential hypertension of primary hypertension unknown cause kuwa badana marka ma u baahna screening la sameeyo ilaa wax sababa of unknown. laakiin markii secondary waxaan u sameynaa screening for renal disorders iska hubinayna renal wax ka qaldan in kale example of examination oo sameynaysa examination waxaa dhegeysanaysa auscultation of renal artery waxaa la renal prutes. sama taa maqta codka renal prutes meesha waxaa jira renal stenosis kaas ayaa sababa marka renal stenosis inuu jiro
glomerulonephritis, polynephritis, yani mataqaana chronic disease of renal ayuu sababi karaa, wuxuu sababi karaa hypertension. So waxaa sameynaa screening, waxaa kaloo ka fiirinaysa waxyaabii cardiovascular sida mataqaana coarctation of bone, waxaa ka fiirinaya endocrine system. So endocrine disorder yani the most common cause also pulmonary chronic hypertension. So ama secondary mataqaana secondary waxa loo yaqaano secondary hypertension. So secondary and primary. Secondary marka waxaa leenahay waxaa fiirinaya endocrine, maxaa ugu muhiimsan endocrine waxaa ugu muhiimsan waxa loo yaqaano pheochromocytoma. Pheochromocytoma maxay tahay? Pheochromocytoma yani waxaa leenahay waa tumor kasoo baxayso adrenal adrenal medulla adrenal glandiga wuxuu leeyahay soma cortex and medulla of the mataqaana of adrenal gland ay kasoo baxaan. adrenal cortex wuxuu qabtaa shaqadiisa waa taqaan saddex leer waxay soo daayaan waxyaaba laga dhahay cortisol iyo aldosterone waxaa soo daaya. laakiin kan leeyahay adrenal medulla tan gudaha ah waxay soo daysaa waxa loo yaqaano catecholamines adrenaline non soma markii meesha tumor ka soo baxo maxay soo daynaysaa waxay ziyadinaysaa secretionska of ay soo daynaysaa adrenal medullada oo ahaa mataqaana waxay ziyadinaysaa in la soo daayo catecholamines for adrenaline non adrenaline soma waxay sababtaa marka inuu noqdo sympathetic inuu noqdo inuu bukaanka noqdo high blood pressure noqdo. marka endocrine waxaa ugu muhiimsan inaan iska fiirino pheochromocytoma. sidoo kale waxaa jiri kara adrenal cortical tumors inay jiri karaan oo kale mataqaana inay tacsiin oo kale mataqaana blood pressure inuu tacsiin sama aso. marka waxaa leenahay you must inaan maxaa sameynaa ugu muhiimsan inaan fahno chronic hypertension inuu saddex xaalood noqon karo inay ogaan karto hooyada before pregnancy ama 20 week hore inay ogaan karo aniga ama markay dhashay kadib uu sii socdo. marka waxaa leenahay hadafkii dhakhtar ahaan waxaa u sameynaa as obstetrician screening. why screening? inay ogaano sababta maxaa fiirina waxyaabaha sababa screening ugu muhiimsan waa renal endocrine and cardiovascular. intaas iga fiiri calaamadaha history ahaan examination ahaan investigation dalbo si aan ogaano sababta chronic hypertension. niinta doctor halkan kale yahay chronic renal disorder inaan fiirino renal problem ma jirto, cardiovascular ma jiro, endocrine ma jiro, si aan ogaano what is the cause ka sababay sabab mataqaana inuu dhaco chronic hypertension ka buuxo secondary ama primary khalaas anna etiology. marka ogaado sababta markaas ayaan daaweynayna waxaa kadib mataqaana aan kula kaashanayno dhakhtarka of mataqaana renal problem nephrologist hadduu yahay cardiologist hadduu yahay hormoonka hypertension ka sababay endocrinologist ayaan la kaashanayna and so on. laakiin you must obviously waa inaad diagnose kartaa sababay hypertension ka ogaado intaad xawin koon ama refer u sameyn. effect ma leeyahay oo ku leeyahay maxay tahay pregnancy-ga effect oo ku leeyahay pregnancy-ga maxay tahay chronic hypertension. sidoo kale effect oo ku leeyahay chronic hypertension pregnancy axis fiin yani pregnancy-ga saameyn ku leeyahay maxay tahay chronic hypertension. sida og tahay blood pressure hoos u dhaca markii lagu jiro blood pressure hoos u dhaca during the pregnancy first and second trimester hoos u dhaca laakiin third trimester waxaa la wasiyaa effect uu leeyahay pregnancy uu ku lahaa inuu blood pressure hoos u dhigo pregnancy-ga first and second trimester hoos u dhigo kadibna markii la gaaro 22 ilaa 24 week wuxuu bilaabaa inuu kaco ku gaaro maximum inuu u sarreeyo inuu gaaro effect-gaas. waayahe chronic hypertension maxay tahay asal saameyntu ku leeyahay maxay tahay pregnancy? pregnancy wuxuu ka kooban yahay doctor hooyo iyo cunug kala qaad. hooyada wuxuu keeni karaa cunugga wuxuu keeni karaa cunugga horta wuxuu keeni karaa IUD inuu hooyadiisa noqdo IUD sama IUD inuu cunugga u keeni karo walahi IUD IUD intrauterine growth intrauterine fetal disease inuu keeni karo cunugga waa faanay doctor hooyada wuxuu keeni karaa wuxuu keeni karaa saddex shay. wuxuu keeni karaa waxa loo yaqaan superimposive preeclampsia superimposive sama superimposive waxaan superimposive waxaan aanay ayada qabto chronic hypertension lagu arko preeclampsia superimposive preeclampsia and eclampsia superimposive preeclampsia labo wuxuu keeni karaa inuu ziyaadiyo complications of hypertension caadiga inuu sii xumeeyo xaaladda inuu sii xumeeyo oo ziyaadiyo complications of preeclampsia of soo hooyada markay qabto chronic hypertension markii uu qaado waxaa soo degdegaya complicationska taqaana of SOS chronic hypertension sama inay saameyso renalkii inay saameyso indhihii sama blindnesskii inay keeni karto inay mataqaana heartiga ay keeni karto heart failure and so on.
marka treatment-ka muxuu yahay treatment waxaa leenahay waxaa loo yaqaano general so general waxaa u sameynaysaa assessment u sameynaa so badan waxaa u sameynaa loo yaqaano assessment ayaa u sameynaa yani general and medical treatment general and treatment-ga waxaa waaye waxbaa isku dhigan waqtina anagu lama digto general and medical treatment are same as preeclampsia same isaga iyo mild preeclampsia isku mid waaye يعني جانا maxaan soconaa blood pressure-kii pulse rate-kii hooyadii xaaladeedii blood urine-kii haddaysan protein urine ma jirto blood pressure waa caadi wuu kacsan yahay laakiin waa daawadii qaadanaysaa soma anta medical-kan aan siinin optionska ii furnaa aan siinin misal toba badan best misal toba aan siinin waxaan la soconayna cunugii hooyada observation and fetal and maternal hooyadii cunuga la soconayna anytime aan ku arko deterioration ama aan ku arko severe preeclampsia inay noqoto ama inay eclampsia galab markaan arko waxaan u sameynaa treatment of termination otherwise faraha ka qaadaysaa daawadii qaadanaysaa miisaan dawada qaadanaysaa dhag dhag waxaan ka koobinaa daawadii qaadanaysaa daawada ay qaadanaysa before pregnancy oosan waxba u gaarsiin karin cunugii iyo hooyada qaad way sii wadanaysaa haddii kalena change baa ka bedelan daawada qaadatay tusi ka bedel medical treatment daawada ka bedel generalkan la socdo xaaladeeda obstetric muxuu yahay obstetric badanaa haddii xaaladda hooyada ay sii xumaato arrin oo kale A and B and C haddii xaaladda hooyada sii xumaato xagga cunug baa laga soo ridaa abortion hooyada xaaladda sii xumaatay dhiigabkii la controli waayey daawada kasta siima controlismo xaaladda sii xumaatay therapeutic cunug baa kasoo ridayna maxaa yeele xaaladda khatar ku jirto preterm delivery ayaa preterm goorma dhici karaa haddii gasho severe preeclampsia gashay eclampsia gashay xaaladda xumaatay cunug baa kasoo ridayna asana preterm noqon termination u sameynaysaa maxaa yeele xaaladda xumaatay laakiin si haddii termiga aniga hooyada termiga gaartay khalaas أنا ترمي نقطي واحد من كيلو بلاد مشكو كنترولية ما شاء الله ترمي نقطة خلاص termination وعمال ما كيلو جاهز ترمي نقطة صدرني تطور صدرني سديد termination سديد termination عاوزين هسه فجأة أو أساسيا سكشن فجأة نحاول هدي أوديو مثلا سيرفيس ويا أوكي ويا بيرفيس كده ويا جود يسجل كونتراكت بيرفيس أو سجل other indication أساسيا سكشن حالنا فجأة بدي كده هدول أنا indication أساسية سكشن عاوزين أساسية indication حكمنا أنا مال position مال presentation contracted beltis previous history مثلا أساسية سكشن أصاب وحنا disease وحنا هوا chronic hypertension وحنا chronic hypertension كتريتمنت general حالة أنا أني ساين أسكت ساين إنه جالس في preeclampsia ما يجي نوصل فرح خط داود حسب مين كاترين داود السيريسا the most option هو فعلا هدول مثال طب لكن دي سفير نقطة بقبل وحاول أنا كنت other combination اللي في التبين وحاول أنا كنت أدور control هدي control موسى abortion كسر الجميع therapeutic abortion هدي تار أنت أي صدر أي جار صدر أي شم صدر لا أي جار تي حادث ماتو also termination مرة ما حواي حادث لكن دي حادث في عند أي يعنيك هو يعنيك في عين نيجر أو control يعني blood pressure من control كم حادث أي دكتور فرق إلا أي جار terminate جار plan for termination زيادة section for وجهة delivery إنتوا صحوا كسر جبيننا وحلينا هذا hypertensive disorder during the pregnancy